بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إخوة وأخواتي meel kastoo joogtaan adduunka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa cabdulqaadir cumar cabdulaahi oo idinkala soo hadlaya magaalada muqdisho caawa waa habeenkii aan ballansanayn insha allah waa habeenkii aan su'aalaha isweydiinaynay khaasatan walaalaha cusub ee meesha ku cusub ee jecel inay wax ka ogaadaan kobciye caawa kale 15 su'aalood ayaan ka jawaabnaa biidni illaahi kariim hadduu ilaahay waqtigu nagu simo wixii abdeedaan marka hore aan ka bilaabi doonaa kadibna intaanan abdeedkaas iyo waxaas gelin abu cabdallah ayaa inoo furi doono inuu daafuri doono biidni illaahi kariim caawa su'aalaha waxaan ka jawaabaya aniga oo cabdiqaadir cumar ah daadihinta waxaa inoo wadaya insha allah professor maxamed rashiid ayaa inoo daadihinaya hadduu alla yiraa marka walaalaha yacni meesha ku jira fadlan magaca qofka waa inuu yahay magac soomaali horaan u sheegnay dadka magac soomaaliga wata keliya ayaa maaragtay su'aalaha looga jawaabayaa qofka kalena laga yaabo in laga saaro gebigeedba meesha qofka magaciisa aan soomaali ahayn walaalaha qaarkood number ayaa ugu qoran sida walaalka hadda maaragtay 6 eber eber 1 uu qoran tahay fadlan magacaaga soo bedel magac soomaali ku soo qoro marka insha allah caawa 15 su'aalood meesha ayay noogu soconayaan marka intaan u gadgalin abu cabdallah waa qofka inoo furi doono anigana waa qofka ka jawaabi doono su'aalaha barsoon maxamed shiidna waa qofka noo daadihin doono oo dadku yeeri doono hodanna sheekh yunis ayadan insha allah ilaahay caafimaad fuul ha siiyo ayadana way noo daadihinaysaa insha allah waxay nooga maamulaysaa systemka xagga dambe ay nooga maamulaysaa biidni illaahi kariim marka abu cabdallah kusoo dhawow fadlan abu cabdallah ma ku jirtaa بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله walaalayaal iskaashay reer kobciye dhammaantiiba mudanayaal iyo marwooyin meel aad joogtaanba waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون walaalayaalow ilaahay khayr badan hadisiiyo aayaddan qur'aanka cilaaqo ila leedahay mashruuceenna allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala haddii dad meel degani iimaan laga helo iyo alla kacabsi waxaanu u furannaa barakaatin waa jamac waa barakooyinkoo dhan min assamaa'i waalardi ee samadii dhulkoo ka imanaya allah raxmaanka waxaan ka baryayaa in ilaahay kobciyo inoo barakeeyo akhyaartan aad baan uga mahad celinaya waqtooda qaaliga ina siiyeen iyo mashruucan had iyo habeenba ay u taagan yihiin allah raxmaanka waxaan ka baryaa in ilaahay ku asturo ilaahayna mashruuca inoo barakeeyo ilaahay quluubteena iswaafajiyo jasaakum allahu khayran baaraka allah fiikum assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله جزاك الله خير أبو شاه عبد الله الله كبرك professor waxaa ka horeeyo daadihinta hordhaca muxuu ahaa update-kii khayr allah ku siiyo update-ka ka horeeyo update yar waxaan rabaa update-ka inaad noo soo jeediso engineer cabdiqaadir insha allah wixii toddobaadkan aan soo marnay oo noo qabsoomay iyo wixii aan ku mashquulnay insha allah soo dhawow بارك الله فيك اسبوعا ان شاء الله واسبوع وحوها ورنتي اد ياد ماركتي فرحad badan inkastoo mar kastaba farxadda ay iska joogto maaragtay wax badan oo fiican oo wanaagsanna waan maaragtay samaynay inkastoo yacni khamiista aan shirnay arbacadana waan shirnay arbacada waxaan soo gebagabaynay muxuu ahaa
sharcigaan soo gabagabaynay sharcigu hadda wuxuu diyaar u yahay in culimmadii loo gudbiyo hadduu alla yiraahdo erey bixintii iyo maaragtay ayaan xoogaa ku af soomaaliga iyo ingilishka isma laha marka adduunka waxa waaye dadka ingilish ayaa aad loo isticmaalo erey bixin wax walba loo sameeyo laakiin af soomaaligii wuxuu u baahan yahay erey bixin in la sameeyo khaasatan waxyaabahan cilmiga ku saabsan marka erey bixintaas ayaan ku mashquulsaneen annaga oo dhammaanteena ah iyo maaragtay abukaatigii ama sharci yaqaankii noo sameynaya dr cadow erey bixinta waan ku heshiinay waan samaynay wuxuu diyaar u yahay inaan insha allah culammada aan u gudbino oo culammada ay soo fiiriyaan ay akhriyaan ayuu diyaar u yahay dhinaca softwareka maanta bacda jimca ayaan si fiican u sheekaysanay injineerka oo softwareka gacanta ku hayay injineer cabdalla ilaahay khayr ha siiyo nin cajiib ah waaye maaragtay oo aad u khayr badan si fiican aan u sheekaysanay marka wuxuu ii sheegay in softwareka accountingka uu diyaar yahay midka diiwaangelintana uu diyaar yahay oo waxba habeeraata aysan ka dhinnayn kii applicationka ama appka oo mobileka lagu soo download garaysanayay isagana maaragtay waa diyaar waxba yaraatay oo hadda ka maqan wax weyn maahan isagana isbuucan ayaa soo gabagaboobaya haddaan wax yar idinkaga sharxo applicationkaas oo mobileka lagu soo download garaysanayo wuxuu ka kooban yahay procedure uu leeyahay qofka markuu soo download garaysto fuli uu soo galo mobilkiisa oo haddana kila gareeyo appka maaragtay iconkiisa wuxuu weydiinayaa ethnigaaga muxuu yahay marka ethnigaas hadduu qofka uu qorto soomaali wuu u furmayaa haddii kale uma furmayo hadduu wax kale uu ku qorto ama qabiil uu ku qorto ama waddan kale uu magaciisa u sheegto ama maaragtay hutu uu sheegto ama tutsi uma furmayo laakiin hadduu soomaali uu yiraahdo waa u furmaya guduhu gelaya markuu gudaha galo waxaa usoo baxaya register ama sign in ama sign out wax noocaas usoo baxaya sign inka hadduu yiraahdo qofka cusub yahay sign out uu leeyahay waxaan leeyahay sign in uu leeyahay markuu sign in uu yiraahdo formkii usoo baxaya uu buuxinaya formkaasi ma ahan formkii oo diiwaangelinta kobciya ma ahan formka uu iskaga diiwaangelinaya appka waa formkaas markuu dhammeeyo kadib code ayuu usoo diraya codekaas ayuu soo gelinaya codeka markuu soo geliya kadib wuxuu geynayaa dashboard meesha dashboardka oo iconska ay yaaliin oo uu rabo inuu qofka marka meesha waxaad ugu tegaysaa 6 icon oo kobciya ay leedahay oo meesha imaanaya midka koowaad waxa waaye transfer money transfer qofka markuu lacagta u rabo inuu transfer gareeyo waxaa hoos imaanaya kaa feature badan ayaa hoos imaanaya featureka hoos imaanaya waxaa kamid a mathalan stand order wax la yiraahdo oo qofka marka lacagtaasi يعني وأسرع ويره هذا العكس ماشي هاللي جويو مركي وقت هبل لجاره وأسرع ماشي وكأوجل هذا كبعية سيستم كذا أي أوتوماتيك لك جوسنا يا قابك وصل ما يصير هينو حواي قف كاس وحواي أما بنجيو أوجلانا يا إن أكاونت كلا جوستو أو أما ما عرفتي وحو أوجلانا يا إن لا جوستو كريدت كارد كيسا أما وحلا جوستنا يا والت أو كبعية إلى ذا oo مع الابلكيشن كان ku jira wallet oo lacag lagu keedsado oo qofku lacag ku keedsan kara ayaa ku dhex jira marka qofkaas lacagtaas marka meesha ay ugu jirto meeshu ka goosanaya systemkii taas waa transferkii waxa ku jira waxa xiga walletkaas waa meeshii kaydka lacagta aad ku keedsan lahaa sida ABC Plus lacagta loogu keedsado ama saadka loogu keedsado ama sahalka loogu keedsado ayaa kana loogu keedsadaa lacagta marka qofka hadduu lacag ku keedsado hadduu systemkeena meesha uu ka ogolaado hadduu yiraahdo walletkayga ha laga goosto xilligaas markii la gaaro walletkaas uu ka goosanaya asagana message u dhacaya qofkii kaas wallet waa featureka labaad featureka saddexaad waxa waaye withdraw haddii qofka uu lacag rabo inuu yacni baxsadoo kale oo walletkiisa ka baxsado walletkaas waxaa kaloo noqon doonaa insha allah meesha hadduu faa'iidadiis xitaa loogu soo shubi karo haddii qofka uusan account ku lahayn bangiyada kale meeshaasaa loogu soo dira lacagtiisa oo faa'iidada ka soo baxda kobciye halkaasaa loogu soo diraya marka hadhow markuu rabo inuu lacag kala baxo withdrawgaasuu isticmaalayaa oo walletka kala baxaya lacagtiisa kaas waa kii saddexaad kan kale waa statement yacni statementiga markuu galo
statementigiisa oo dhan ayuu meesha ku arkaya wuxuu arkayaa accountkiisa u shaqaynaya iyo wax lamida kulli waxaasoo dhan meeshuu ka dhex arkaya kan afaraad waxa waaye shanaad miya mise afaraad maaqan kan koowaad wuxuu ahaa transfer kan labaad wuxuu ahaa wallet kan saddexaad wuxuu ahaa withdraw kan afaraad waxa waaye statement kan shanaad waxa waaye registration yani inuu registration sameeyo qofkii oo diiwaangelin geliyo waxaasoo dhan ma arkayo macnaha registration waxa waaye waa kii kobciye qofkan kobciye featureska oo dhan kale ma shaqaynaya haddaadan registrationkaa samaynin qofka marka registration markuu taabto waxaa usoo baxaya foomkii weynaa oo diiwaangelinta ahaa ee kobciye foomkaas markuu iska soo diiwaangeliyo senda ayuu leeyahay markuu senda yidhaahdo wuxuu imaanayaa systemkii kobciye ma ahan mobileka dhexdiisa systemka kale computerka ayuu imaanayaa meeluu ku jiraa oo maaragtay yani oo buffer zone ah oo bending ku noqonaya approvalkiisaas waxau approve garoobayaa marka lacagta qofkaasi bangi ay kusoo dhacdo lacagta uu soo diray bangiga markay kusoo dhacdo marka waxaaba laga yaabaa bangiga lacagtadu diray in xawaaladii laga maarmo haddiiba qofka uu walletkeena isticmaalayo oo kobciya walletkeeda isticmaalayo asoo meeshuu doon adduunka ha joogo inuu xawaaladba u baahan oo meesha uu kasoo dhex diro lacagta oo kobciya usoo diro lacagta oo si toosa maaragtay ay ugu soo dhacdo taasaa suurtagala oo xawaalad iyo inuu bangi taga iyo waxaasoo dhan uusan u baahnaynba taasaa insha allah suurtagala taasaana insha allah aan ku tali jirnaa inkastoo bangiyada naftooda hadda rajadeena ay aad u fiican tahay in maaragtay ayaga naftooda ay nala shaqeeyaan marka kaas waa mid kan lixaad waxa waaye projects yani projects markaad taabato waxaa kusoo baxaya saddex feature kale oo ah maxaa rabtaa inaad ogaato ongoing projectii hadda socda miyaa rabtaa inaad fiiriso tiradooda iyo listigooda ma waxaa rabtaa projectiga maaragtay completed projectiga dhammaada miyaa rabtaa mise project in pipeline projectiga soo socda miyaa rabtaa inaad fiiriso marka saddexdaasna meeshaad ka dhex arkaysaa intaasoo features uu ka kooban yahay maaragtay applicationka oo kobciye insha allah isbuucan waa soo gabagaboobaya biidn illahi kariim injineerkan waa noo imaanaya nin aad iyo aad bangiyada iyo xawaaladaha ay aad u ixtiraamaan waaye marka wax alla wixii bangiyada looga baahan yahayna isagaa noo samaynaya hadduu aliira oo systemka automationka ah marka waa soo dhow yahay biidn illahi kariim isagana xoogaa caqabad yaraa ka haysata xaggaas oo sharciga iyo waxaas iqaamadii marka asna aan u ducayno inuu ilaahay usoo fududeeyo oo dhaqsi uu noogu yimaado insha allah marka intaasaa update ah waxaa kaloo idinku xijinaya arrintii oo maaragtay advertisementiga kilibkii oo advertisementiga oo tviyada aan u qaybin lahayn waa gabagabo insha allah isniinta ama talaadada labada mid waa naga soo dhammaanaya kadibna wixii commenti aan maaragtay ka dhiman waxaas ku darayna adwaliira haddii okay uu noqdana waxa waaye waa automatically inaan bilowno inaan tviyadii laga soo dayn lahaa iyo idaacadihii aan dooranno oo markaas aan u qaybino oo hawshan ay wadaan engineer enu khayr allah siiya isagana waa ninka maaragtay lacagta bixin doono oo advertisement oo diyaar la ah inuu lacagtaas advertisement u bixiyo waxay ahaataba marka intaas ayaa update ah khayr allah idin siiyo maxamed rashiid waa kaaga baxay aad baa u mahadsantahay injineer jazaaka allahu khayr sida wanaagsan oo faahfaahsan oo aad u gudbisay walaalaha soomaaliyeed meel walbo ay joogaan waa salaamaynaa walaalayaal waxaan rabnaa ruuxii wakti la siiyo si kooban su'aalihiisa waana dadkii hore ayaa dadka cusub ayaan siinaynaa xoogga waxaan rabnaa walaal su'aasha kugu wareegayso inaad soo jeediso waa lagaga jawaabaya insha allahu tacaala waxaan siinayaa marka ugu horeyso walaalkeen injineer cabdulaahi axmed kusoo dhowow su'aashaada injineer cabdulaahi injineer mana maqashaa batanka ballaaranee hoose taabo cagaarha ku noqdo batanka taabo furo kusoo dhowaaw injineer cabdulaahi batanka ballaaranee hoose ee dhexe taabo kadibna soo gal waa hadli kartaa markaas
بروفيسور كسعود qofka lagu waa weynay waa ismaqli weynay waxaan siinayaa hadda oo gacanta taagaya cabdirashiid Saleymaan Yare soo dhawow Saleymaan Yare Saleymaan Yare السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. calaykum salaam ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamayaa waana dhageystay warbixinadii laakiin su'aal warbixinta caawiya hadda waa sidee codka injineere codka haa insha allah waxaan isku agtaada ama dayayaa qaraf ka leeyihiin ma la professor maqlaa professor agtaada qaraf ka yeelayso asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah hadda si fiican baa lay maqlaa baan rajeynayaa aad iyo aad soo dhowow okay bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilah aad baan u dhageystay warbixintii uu injineer cabdiqaadirna siiyey laakiin mid taa ka duwan oo ka baxsan baan rabi lahaa in maaragtaan idin weydiiyo waxayna tahay dowladda soomaaliya waxay maalin dhaweyta ka hadashay ganacsiga iyo in uu ku lug yeesho maaragtay nimankan khatarta ah waxa hadda laga sheekeynayo lacagta marka la aruurinayo looma aruurinayo in dhul lagu xabaalay in sadaqa lagu baxsho waxa loo sameeyaa in ganacsi lagu sameeyo haddaanan qaldanayn see looga ilaalinaya marka dadka khatarta ay dowladda u aragto oo maanta ugu dambeysay qofkii daawaday baa daawaday telefishinka qaranka barnaamij kulanka toddobaadka wuxuu ka hadlayay wasiirka ganacsiga bangiyo nimankaas u tegay oo lasoo macaamilay meelaha maanta waxaan ka maqlay 13 milyan iyadana waxaan maqlaynay oo ay ganacsatay dad si hoose intay si uun usoo gashay iyagana la qabtay waxaad tidhahdeen member furan ayaan u baahannahay haddii iyaga ay kasoo buuxsamaan si dadka uga dhex soocaysaan nimanka khatarta ah ee loo diiday in shilin uu gacantooda ku dhaco aad baad noo mahadsantahay haddaad su-aasheedii fahamteen بارك الله فيك سليمان يرى هذا أفهم بسؤال هذا دور جرنا ونصور مرت سؤال شاسو كله هرت سليمان ولكن وحواي ودن كنا ودد وحنا هيدد صومالية دعنا هاي أو لا تشتي وعدو دبدة أو تشتي أمد لك لجيء أو لك قبي أو ما أعرف قال أنت الله سميستي أو سياسيين ليرة هذا أو قلبه جوني من الكحرتي يعني ساس لو kala qoqobay markaas anaga dhaxdeena waxaana la yiri kaas cadow ku yahay kaas cadow ku yahay kaas cadow ku yahay kaas cadow ku yahay ayaa naloo sheegay oo cadow ayaa anaga dhaxdeena laga dhigay marka wax dhibaatadaas oo cadownimadaas iyo kulli maaragtay haddana dhaxdeena keenay waxa waaye in anaga nalagu mashquuliyey waxyaabo oo aan awoodi karin inaan gaarno oo markaasi tiina ay dhaxal siisay inaan anaga faqri iyo dhibaato iyo gaajo iyo maaragtay ilaahayna aan ilownay oo xiriirka ilaahayna uu xumaaday oo diintiina laga fogeeyey wax walbana oo xumaanana lagu sameeyey markaasaa noloshii aan gaari karin kadib maaragtay nolol sameeyey inaan maaragtay dhexdaan kusoo dhacno oo noloshii waxyaabihii oo zaa'idka ahaa nolol sameeyey oo aan nolol gaari karin inaan anaga gaari weyne oo meel dhex aan kusoo dhacnay oo markaas fakri aan fadhiisanay oo meel cidlaan aan imaanay marka walaalkay waxa waaye arrintaasi kulli waxa waaye waa wax preplanned ah oo hore loo yani balangareeyey in waddankan lagu hayo oo saasna ay noqoto weligeedna saas ay ahaato oo markii dhibaato in lagu dhacdaba aan nidhaahno beesha caalamka marka maanta waxaa la yidhi waxaa jira argagixiso sax waay waddanka argagixisa waa ka jirtaa dhibaato waa ka jirtaa muxuu ahaa ummadeenii annaga dhexdeena islaynayno marka wiil dhalinyara oo annaga naga mid ah markuu qof walaalkiisa oo soomaaliya uu dilo oo micnaha uu u dilayn uusan fahamsanayn kan wax dilayn uusan fahamsanayn waa waxyaabaha calaamadaha qiyaamaha ay ka mid tahay calaamadaha qiyaamaha oo ilaahay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay ayay ka mid tahay marka qofkaani wiilkan isaga ah ee qoriga qaaday ee wax dilaya sababta u dilaya maxay tahay sababta u dilayo maxay tahay inaan fahamno waa qofkan qof soomaali ah hadduu maanta uu caruur dhalo wuxuu dhalayaa caruur soomaaliyeed oo adiga garabkaaga ah ayuu dhalayaa beddelka adiga aad dili lahayd yacni waxaa ku fiican in adiga isaga aad soo xarayso
oo aad tiraahdo walaalow kaalay waxa nolol ma u baahan tahay waa ta noloshii maxaa u baahan tahay waxa guur waa kan guurkii waxaad u baahan tahay guri waa kan shaqaa u baahan tahay shaqadii waa tan qofka isaga ah marka aad noloshaas u samayso ma laga yaaba inuu qori qaato Saleymaanu aan ku weydiiye maya hata ay maqlayso adigu marka hadda si fiican baan ku maqlaa aniga waa la maqlaa marka waa ku maqlaa marka waxa waaye annaga wax aan la dagaalamayno waa dhibaatadan Soomaali haysata gebi ahaanteed maxaa sabab u ah sababtaas ruudkaas xididkaasi inaan siibno waa hadafkeena ma garatay xididkaas inaan siibno waaye annaga suurtagalna ma ahan mana suurtoobaysa inaan hadda waxyaabahaas oo shirkadaha lagu sheegayo anaga kobciye ay ku dhaqanto suurtagal ma ahan mana soconayso mana dhici karto laakiin qof Soomaali ah oo Soomaalinimo kula og oo aad ogtahay inuu Soomaali yahay inaad tiraahdid oo faquuqdo oo tiraahdo waxaasaa tahay xagga naga joog yacni dhibaatada kugu soo kordhinaa mise kugu soo kordhinaya mise wanaaga kuu soo wadaya laakiin haddaad soo dhawaysato qofkaasi aad soo dhawaysato oo noloshii uu rabay oo raadinaya oo qoriga darteeda uu qaaday haddaad u hagaajiso qofkaasi dhibaatada ma joojinaa mise ma joojinaa tee labadaas kula ran adiga nin horta angalka aad ka fiirisa waa ku saxan tahay oo dhibaatada Soomaaliya waa iska badan tahay laakiin dhinaca ma aragtay waxa ugu xoog weyn faqriga ugu xoog weyn dadka waxa nafta u keenay faqriga waaye ma garatay waa gartay laakiin dawladdii hadday leedahay nimankaas ma lala macaamili karo raad ma soo yeelan maya fiir dawladda hadalka aniga waa dhex joogaa aniga weydii dawladda waxay ka hadlaysaa haddii maanta qof oo dhalinyaro ah uu soo dhiibo dawladda dhaqan celinay ku samaynaysaa meelay ku xaraynaysaa ma garatay ma dilayso dawladda qofkaas intuu qoriga wato oo wax dilaya ayay la dagaalamaysaa laakiin intuu hadduu soo dhiibo oo qoriga uu soo dhigo dawladda waa ay soo dhaweynaysaa dhaqan celinay u samaynaysaa waxbarashay siinaysaa nololay siinaysaa ma garatay ma ahan inay dawladda diidan tahay qof individual ah in maaragtay dhibkaa laga soo saaro oo maaragtay oo wanaagga u yimaado aniga ma jecleen horta runtii waxyaabahaas inaan halkaan uga hadlo waxaas inaan halkaan uga hadlo ma fiicneen wax dhaqaalihi quseeya laakiin iyo ganacsiga waa quseeya laakiin waxaa fiican waxyaabaha amniga ku saabsan had ijeer inaanan meesha kaga hadlin sababtoo meesha qof kastaa ku jiro waa sheega wax walba laakiin marka waxaan jeclaysan lahaa wixii amni ku saabsan inaan gooni ahaan u wada hadalno ayaa ka fiican aye borsore injineer waa mahadsan tahay waa su-aashan waxaa weye kobciyo waxay ku wajahan tahay faqrigay la dagaalaysaa cid walba oo faqri uu hayo annaga waxa weye calaamad wejigii kama saarno dadka ma kala garan karno kobciyo waxay furaysaa nin walba oo faqri ka cabanayo ama ummaddan sidii ay maaragtay oga bixi lahayd nolol xumada ayay ku wajahan tahay dadka waxa weye soo galaayana waxaa lasoo marisiinayaa broseskaas ninka soo buuxiyo oo soo dhammaystiro oo sax ah annaga ruuxa qalbigiisa ma garan karno ilaaha garan karo laakiin dib dambe dhibaataduu geysta nin walba asaa ka jawaabayo midaas su-aashaas jawaabtaas inay caddahan filayaa waan ka gudbaynaa waxaan rabaa inaan siiyo deeqo cumar hadday na maqlayso soo dhowow su-aashaada ma lay maqlaa asalaamu calaykum salaam waraxmatullah ku soco waa lagu maqlaa si fiican horta khayr allah idin siiyo waa mahadsantiin jasaakala alif khayr horta tan aad ka sharaxdeenna aad ayaan ugu farxay sida aad u sharaxdeen oo ah qofka walaalka soomaaliga inaana takoorin way fiicanta anigu ra'yigaas waa idinla qabaa waan idinku soo dhaweynayaa mana la yaqaano soomaalidii anigaygaan haddaan noqdo al-shabaabkiyaan ismiciin karaahoo weji kale aan kugu imaan karaa ilan soomaaliyaan kula ahay taas waaye anigu waxaan joogaa qurbo okay ma isku daydeen in xataa aad kobciye aad ka furtiin qayb xawilaad ah sababtoo iyo anigoo kale seen bangi ahaan u furan karaa hadda Sweden aan ku noolahay bangiga oo kobciye oo lacag ku keedsanayo sideen u furan karaa intaas barakallahu fiik deeqo aad mahadsantahay walaashay walaalaha waxaan ka codsanayaa waxyaabahan oo ku saabsan siyaasadda iyo amniga iyo maaragtay
si gooni ah ay noola soo xiriiraan ayaa noo fiican meeshan publiga ah meeshan waa public waayo anaga xamaran joognaa marka inaad noo turtaan waa fiicnaan lahayd marka si gooni ah noola weydiiyo wixii amni ku saabsan iyo maaragtay arrimahaas inaad si gooni aad noola soo xiriirtaan noo sheegtaan meeshan aan maaragtay laisku weydiin marka saasaa aan jeclaysan lahaa sababtoo waxa waaye waa arrin xasaasi ah deeq walaashay waxa waaye xawaalad hadda waan sharxay kilibkan hadda aan duubayno hadhow dhegeyso insha allah app ayaa soo socdo oo kobciya ay leedahay wuxuu leeyahay wallet oo lagu keydsan karo lacag oo lacagtaasna hadhow aad ka soo diri kartid adigana aad ku keydsan kartid lacag oo adigana aad lagugu keydina karo meesha marka lagu soo diro lacagtaada aad ka dhexeelaysid account ahaan uu ku noqonayo ayaa kobciya ay samayn kartaa oo hawsha ay gacan ku jirtaa isbuucan soo socdo soo gabagaboobay hadduu la yiraa abkaas marka abkaas yacni kayd ayuu ku noqonaya bangi oo gacanta aad ku wadatid mobileka kugu jiro waaye oo markaa rabtidna lacag ahaan xawilaad ugu soo diri karta kobciya lacagta ay bambershipka ahaa oo kobciya accountkeeda ay kusoo dhacayso iyo marka adiga lacagta faa'iidada kobciya ay soo diraysana accountkaada uu ku noqon karo oo meesha lagugu soo diri karo labadaas way noqon oo hal daqiiqo ka maarano hal daqiiqo taas hadaata shaqan ku jiray waa dhegaysanaaye laakiin aniga bangigayga ahaan sweet bangiga aan haystamaan toos uga soo xawili karaa mise sida xawilaadiyada aan reerka u diro ayaan linkigaas aad samaynaysiin oo lacagta idinkugu soo dirayaa oo laga goosanayaa canshuurta sababtoo galaxy kalaa ka dirsadaa markaan reerka lacag u diraayo waxay ka goostaan canshuur saas camal xawilaad meel ah maad samaynaysiin sida galaxy ah mise bangi to bangi waayo maya waxaan kuu sheegay bangi horta bangi aniga lama macaamilayna hadda waqtiga xaadirka bangi kale oo dibadda ku yaallo inaan la macaamilno hadda diyaar nooma ah inaad bangi wax ka soo dirtana laga yaabo in adiga dhibaato ay kugu noqoto oo hadhow dabagal wax ku yimaado marka waxaa ku fiican laba mid inaad walletka oo kobciya ay samayn doonto aad isticmaasho oo abkaas oo galaxiga laftigiisa ab waayo oo dad ay samaysteen kaasoo kaleeta ayaa kobciya ay leedahay oo ku jira oo mobileka aad kusoo download garaysanaysa kaas ayaad ka soo diri kartaa lacagta oo weliba lacag aad ku keydsan kartid oo sida bangi aan lacag ugu keydsato oo kale isagana lacag ugu keydsanaysaa waa garsoomaan iyo xawaalad inaad kasoo dirto inaad xawaaladi kasoo dirto weliba midkaana kuu fiican inaad xawaalad kasoo dirto xawaaladaasna ay accountka toos ugu soo rido oo aadan xawaaladaas kasoo qaata ayna dhihin macnaha ma rabno qof inuu xawaalad tago oo lacag kaash uu soo qaado ma rabno taa waxaan rabnaa qofka lacagta haddii xawaalad uu kasoo diraayo waa inay accountka u soo diraa oo hubsadaa inay accountka ku dhacday waayo waxa waye waxyaabaha sensitivity aan ilaalinaynay ka mid tahay in qof bini aadam uu kaash gacanta ku taabto ma garatay marka waxaan rabnaa laba mid inaad isticmaasho xawaaladaas hadday tahay xawaalad ku xiran bangigaas oo annaga aan ku leenahay maxay hato ii sheeg aan ku leenahay account xawaaladaas ina hadda galaxy oo kaleeto account kuguma shubi karto account kuguma shubi karto waxa waaye xawaalad kalaa meesha unu joogto oo wakiil ah xawaaladaas telefoon kusoo dirayso waxay lacag ku taalo imo taasna ma soconayso marka waxaa la rabaa ama inaad isticmaasho xawaalad sida taaj amaana amal amaana waxay leedahay amaana xawaalad amaana la yiraahdo tawakal oo ayagana sombanka leh oo account aan ku leenahay maxaan ku idhaahdaa isheeg amal oo amal bank account ku leenahay dahabshiil aan ku leenahay taaj oo salaam bank aan ku leenahay xawaaladahaas haddaad ka soo diraysid accountkay toos ugu soo dhacaysaa laakiin ma rabno galaxigaas oo kale kuma soo dhacayo lacagta inaad soo qaadday kuu qasbeen marka galaxiga may waan fahmay abu hadda ka hor baa dahabshiilaan lacagtaan soo diri jiray dahabshiilaan kusoo diray maya waxaan soo dejisanayaa linkiga hadda waan fahmay tag waa mahadsantahay linkigaasaa kuu fiican inaad soo degsato oo lacagta aad ku shubato kadibna aad meesha kugu keydsanaato lacagtaada waa su-aashaasi waa dhan tahay si fiican u faahfaahsan tahay waxaan ka soconaynaa ruuxa ku xigo khaliif hadduuna maqlaayo khaliif su-aashaada iyo meeshaad joogto noo sheeg khaliif ku soco
khaliif mana maqlaysaa professor farax ku soco professor farax meeshaad ka soo hadlayso meesha joogto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخليف مقدشة جوجا وحبضنا ولا سعودة هذا وحبا يقوم سيجنا لكن هل كمدينة وحي تاي سؤال شاسي لعق تريستا ما waxa kaliya oo lagu dirayaa hadda sida aan maqlaayay maxay ahaydey xawaalad mise akawnada oo kaliya inta uma maaragtay aan rabaa iyo qofka jooga masalan tusaale meel aan maaragtay lahayn ama aan haysanin ba maxaa la yidhahdaa smartphone-ka telefoonada la yidhaahdo xageeba maaragtay u raacaya waayo khaliifow waxaan umalaynaya inaan caddayn arrintaas muxuu ahaa waxaan nidhi ab ayaan samaynay abkaasi isaga naftiisa xawaalad ah bangina ah xawaaladna ah abka aan samaynay oo kobciye ay leedahay asagaana wax ku kaydsanaysaa bangina wuu ku yahay waxbaad ku kaydsanay lacag xawaalada uu ku yahay waad ka xawili kartaa lacagta oo accountka bangigana waa ku shubi kartaa haddaadan smartphone haysanin oo ama maaragtay tuulo joogtid tuuladaas hadda waxay leedahay wax la yidhaahdo abc plus ama sad ama waxay leedahay bahalkii muxuu ahaa sahal ama idahab intaba way leedahay ama amtel oo iidan maaragtay xawaalad leh oo saasoo kale leh intaas marka aad isticmaasho haddaadan abc pluska iyo sadka iyo kaasa aad loo isticmaalaa iyo sahalka iyo idahabka kuwaas ayaa bangiga intaad kasoo dirto accountka muxuu ahaa abc pluska oo kalete matalan ayaad bangiga ku shubaysaa maaragtay kobciya adoo sariirtaada jiifa bangigoo kaleeto hadda saadkoo kale markaad rabto inaad account lacag ku shubto waxaan leeyahay abc pluska adoo inaad account markaa ku shubto waxaa isticmaalaysa star 799 star kadibna account numberka kadibna star kadibna lacagta kadibna ash ama afargees siday soomaalida u taqaano inta haddaad samayso accountkay toos ugu dhacaysaa commentu ku weydiinaya maxay tahay lacagta waxaad leedahay membership ama kobciye xubinnimada kobciye aad ku qoranaysaa meesha automatically lacagtaas iyo magaca u bixisayba statement ay noogu soo bixaysaa oo accountka annagana messageaan noo soo dhacaya adigana messageaa kuu soo dhacaya marka way sahlan tahay waad fahamtaa umalayna waa fahmay marka inaan kobciye ku qoro soo ma inaan kobciye ku qoro soo maahan marka inaan marka waa ku sheegay soo maahan haddaan ku sheegayba commentiga ku leeyahay commentigaas waxaa ku qoraysaa kobciye xubinnimo kobciye oo kale ayaa ku qoraysaa markaad ku qorto kaasaan kusoo baxay okay waaladka markaan rabo inaan markaan la soo dego asiga waa bangi waan naqaanaa waa shirkado badan baa leh laakiin lacagta marka aan rabo aan ku shubanayo bangigeen uga shubanaya taasaa isweydiin leh waayo hadda premium bank walad uu leeyahay asaa looga shubtaa taas trainan samaynayna insha allah trainan samaynayna traininka markaan samayno ayaad arkaysaa keli baan diyaarinaynaa oo trainina qaabka loo isticmaalayo qaabka lacagta loogu shubto qaabka lacagta looga baxsado kulli markaasaan insha allah sheegay marka in la geeyo soo maahan lacagta banki la geeyo loogu shubo hadda wuxuu dhismihiisaa socdo khaliifow hadda dhismihiisaa socdo tababar fiican ayaan bixinaynaa qof kasta uu ku qancayo insha allah ay insha allah kelibyo kuu sharxayaa mar dhow lasoo dhigi doonaa kelibyo kuu sharxayo ku hagaayo ayaa la samayn doonaa insha allahu ruuxa ku xigo warsamo qaaje xageed joogtaa meesha joogtid sheeg su-aalahaadana soo jeedi warsamo qaaje haddaadna maqlayso السلام عليكم. calaykum asalaam waraxmatullah horey u soco meeshaad joogta sheeg بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan kaa soo wacayaa ingiriiska waxaan joogaa london su-aashaydii badanaa life maantaan soo galay laakiinse kilibyada markii lasoo dhiga meeshaan dhegeysan jiray dib u dhegeysan jiray waa la socday maaragta programka
maaragtay horta waa u mahadcelinayna ragga wada programka iyo siday u wadaanba su-aal yaan rabaa oo hadda xoogaa ayaan laga shaqaysiiyey aad tiri gacanta waxaan u taagay weladka dadka yurub yaqaana jooga iyo dadka kale oo bangiyada isticmaala aad bay u yaqaanin weladka waa inay ku xiran tahay meel lacagta looga soo shubaa bangiga badanaa looga soo shubaa gabadhii ugu horreysay waxaan gacanta u taagay gabadhii ugu horreysay oo welad ka hadlaysay oo kasoo Sweden markay tiri bangiga maan ku xiraya aan tidaahdeen bangiga ha ku xirin weladku waa inay jiraa meel ay lacagta uga soo dhacdo horta intaan isticmaalinin oo looga soo shubo marka taasaan raba inaan ku weydiiyo laakiinse training baan bixin doonaa baa tiri iyo sidii loogu soo shubayo marka taasaan uga kaafsoomaya maadaama adiga waa mahadsantihin aad baa u mahadsan tahay waxa weye maryan soo dhowaa maryan meeshaa joogta sheeg iyo su-aalahada soo dhowow maryan soo gal waxaa furtaa okay axmed bashiir ku xigso axmed bashiir meesha aad joogto iyo su-aalahada iska fur batoonka furo ilaa cagaar uu ka noqdo batoonka hoose ee ballaaran oo dhexda ah okay ninkaana ma hayno shariif haya xagee joogta axmed شريف واي السلام بسم عليكم الله shariif axmed شريف magacaadii meeshaa joogto shariif أنا waxaan joogaa Nairobi baan joogaa magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdirashiid Cabdullaahi Shariif baa la yiraahdaa haye hore ku soco aniga waa ku qanacsanahay hortay wax kasta waa ku qanacsanahay laakiin waxaan rabay inaan aan weydiiyo soo lama samayn karo arrin kaloo kobciyo garab socota oo dadka wax looga aruuriyo guryo iyo dhul iyo lagu gado inaad su-aashay fahantay ma ogi ku celi bal su-aasha macnaha maxaa ka wadaa waxaa way lacag kaleeto oo kobciyo garab socota oo kobciyo ka baxsan oo ninkii rabo uu ku biiri karo oo lagu gado guryo iyo dhul iyo wax saa oo kale lagu gado walaal shariif allaha khayr ku siiyo horta nin dadaalaya tahay maaragta waa codkaaga aadan u dhegeystaa runtii khayr allah kaa siiyo ilaahay ugu barakeeyo waxa waaye maxay ahayto arrintan aad sheegaysa kobciye ayada ayaaba samaynaysaba hawshaas oo nus dollarka naftiisa laga sameynaya iyadoo kalifaad kale la gelin codka hala xiro fadlan codka iska xir codka hala xiro axmed hadalkaa la jooji walaal codkaaga waa furan yahay axmed codkaaga waa furan yahay waa lagu dhegeysanaya marka codkaaga balal jooji shariifka marka kobciya nus dollarkaas ayay waxaas aad sheegaysid oo ay ku samaynaysaa hadduu alla yidhaha iyadoon kalifaad kale iyo maaragtay wax kale aan la furin ayaa taasaan ugu filan taasaan ilaahay rajaynaya inuu ilaahay noo barakeeyo insha allah okay kamarada iska xir axmed bashiir axmed asaga soo geli kamarada iska xir asaga soo geli axmed haye axmed bashiir soo gal soo dhowow meeshaa joogto axmed bashiir axmed horey u soco meeshaa joogtid sheeg بسم الله السلام عليكم عليكم السلام عليكم بسم الله السلام ورحمة الله aad iyo aad ba mahadsantiin dhammaan qolada maamulka kobciye maamulka hooseba aniga magacayga waxaa la dhahaa Cabdirashiid Cabdilaahi waxaan joogaa magaalada Burco ee gobolka Tagdheer markaas arrimahoo dhan ka mareen oo la socdaa marka aad iyo aad ba mahadsantihiin ilaahayna subxaana watacaala ha idinla garab galo ha idin fududeeyo hawsha marka wax su-aalo aan qaba iyo wax arrin oo kale aan qaba ma jirto
raalli baa iga ahaanaysaan. Asalaamu calaykum. aad ba umahadsan tahay aad. nuuro cabdiqaadir, haddaadna maqlayso nuuro cabdiqaadir, meeshaa joogtid sheeg iyo su-aalahada. soo dhowow nuuro cabdiqaadir. qofka nawaad shariif ha laga saaro, nawaad shariif meesha ha laga saaro, waayo magac qof kaloo la baxay. nawaad shariif fadlan magacaaga bedel intaanan meesha lagaa saarin. magacaaga bedel, magacaaga bedel, magacaaga soomaali ku qora. hadduu magacaaga soomaali yahayna waa anaga waxba kama qabno, haddaaba soomaali tahay waa. iyo ruuxa kaloo tirada ku qortay, tirada nambarada ninka ku qortay magac ka dhigtay, walaalo magacaada ku qor 86 ma naqaano magacu, ma naqaano walaal. magacaada ku qor, aan isbaranno, aan ku baranno nambara adigana. soo dhowow, ku soco nuura. السلام عليكم أصحابتي calaykum كلية. salaam waraxmatullah. nuura meeshaa عليكم السلام. joogtid, مقدشان جوجا. hay soo dhowow, soo dhowow. هاي ودو هاي محان ربا dadka nacam qoran oo group ka u qoran aniga habeen dhaweedna waa soo galay mana ku jiro magaceyga waan ka waayay macnaha marka waxa waaye ha isqoris oo gooni oo xaafad xaafad iyo group iyo degmo degmo iyo gobol gobol u qorqoran ayaan arkay aniga habeen dhaweedna waan soo galay muqdishoan joogaa aan dhahay nacam qoraalkiina ma ku jiro ma reer muqdisho si gooni ah mase maxay tahay waxba iga dhiman. waa mahadsantahay walaasheen Nuuro, soo dhawow. arrintaas horta abaabul waaye, diiwaangelin ma ahan, waa abaabul oo degmo degmo inay isu abaabulaan dadka unbaa loogu talagalay. marka haddaad ku jirtay haddaadan ku jirinba wax dhibaato ma laha. waxa waaye dadka unbaa inay is abaabulaan, waxaa loogu talagalay maalinta kobciya la daahfuro inaan helno nambarka ugu badan oo dadka ay kasii warqabaan. hadafka taas ayuu ahaa, oo inay dadka isii abaabulaan oo maalinta daahfurka la sameeyo nambarka ugu badan ba aan hore ka helna maaragta oo isdiiwaangelinaya. hadafka taas nambarkii koobaad oo soo galay oo maxay tahay su'aalaha qabay oo su'aalihii uga jawaabteen oo ku qancay su'aalihii kamid ahaa haddana waxaan qabaa nacam waxaan rabaa processka la maraayo iyo waxa ii dhiman iyo maxay tahay meesha aan imaanayo ayaan rabaa inaa haddana ii sheegtid oo processka la maraayo nacam markii la soo galayo. okay walaasha waxa waaye waxaa jirta xaflad weyn oo la qaban doono oo insha allah oo adduunka dhan laga daawan doono biidni illaahi kariim. xafladdaas markaan samayno ayaa diiwaangelinta ay bilaabmaysaa. diiwaangelinta markay bilaabmayso laba nooc waaye, qofka haddii uu kombiyuutar yaqaano iyo hadduu mobileka sida loo isticmaalo yaqaano intaba waa iska soo diiwaangelin karaa. waa sharaxnay haddeertaan wax yar ka hor. hadhow marka codka meesha lasoo dhiga dhegeyso qaybta hore. haddii aadan markaa kombiyuutarna fahmaynin mobilekana application sida loo isticmaalo aadan garanayninna, kobciyo waxay lahaan doontaa insha allah xafiisyo oo meel walba ku yaallo. xafiisyadaas mid ka mid a ayaad imaanaysaa, xaggaa lagaa regis garaynaya oo foomka lagaa buuxinaya, lacagtan akaanka ku shubaysaa, kadibna saasa xubin uga noqonaysaa. taasna way dhiman tahay marka weli waaye. waa garanaya isticmaalka telefonka waa garanaya isticmaalka telefonka waa garanaya hadda ku horba aniga adinka kusoo xiriirinay saasaan kugu soo xiriiray. may kilibaan soo dhigi doonaa oo ku sharxaya qaabka diiwaangelinta lasu sameeyo. kilib ayaan diyaarin doonaa, kilibkaas ayaad fiirsanaysaa, qaabka kilibkaas uu kuu sheega isu diiwaangelinaysaa insha allah. kilibka xagee iigu soo dhacaa marka whatsappka ma iigu soo dhacaa ma wuxuu iigu soo dhacaa telegramka halkaan kusoo dhacaa, halkaan meesha aad hadda ku jirtood ka dhex hadlaysid ayuu kusoo dhacaya. anaga whatsapp ma isticmaalno, halkaan kusoo dhacay telegramku kusoo dhacaya insha allah, meeshaad ka daawanaysaa bidnillahi. barasaadka la maraa markaasaa la ii sheegaa marka sooma waa lagu sheegayaa marka wax walba markaasaa lagu sharxaya, kilibkaana kuu sharxaya. xafladda nacam xamar waaye sooma xafladda xamara lagu qabanaya, laakiin adduunka dhan waa laga daawanaya insha allah. haye xafladda marka waxaan ka daawanaa teleefonkeyga maan kala soconaa mase waxaan imaan karayaa meesha facebookaa lasoo gelinaya, facebookaa lasoo waad kala socon kartaa ha meel walba, youtubekaa lasoo gelinaya, meel walbaad kala socon kartaa insha allah. okay waa mahadsantihiin. adaa mudan. khadar xasan diiriye, soo dhowow. khadar xasan diiriye, xaggee joogtaa? meeshaa joogtid iyo su'aalahada.
qofka marka loo yeero batanka ballaaran ee hoose ha taabto batanka ballaaran ee buluugga ah ee dhexe ee hoose ha taabto kadibna markuu taabto cagaaru isu bedela kadibna ha hadlo Ah, soo dhawow qadar. profesor ka soco hadduusan soo geli karin ka soco qofka waxaa laga yaabaa inay cilad haysato haye qadar haye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan reer kubci waa salaamaya waxaan kasoo hadlayaa calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu muqdisho kasoo hadlayaa xafada goorma la Haye qabana qadar. Ha qadar soo dhawow waa ku soco waa ku maqlaa. walaal xalfada maa la qabanaa intaan lagu kulmi doonaa walaalo xafladda wadi waaye adiga nofembar ilaa hadda wax bedelay male qorshaheenna inaan bisha nofembar dhexdeeda aan maaragtay daafur samayno oo xafladda aan qabanno ayaan rajaynaynaa bisha soo socota goobta lagu qabanayo weli lama cayimin marka insha allah markaasaa lasoo sheegi doonaa oo maaragtay la faafinaya yani xayeysiinaa jiri doonto oo iclaan oo la sheegi doono maaragtay xafladda goorta la qabanayo iyo goobta lagu qabanayaba markaasaa la sheegaya hadduu alla yidhaaha halkaanaan kala soconaysaa insha allah xalfada ma laga soo qaybgeli karaa dadka barnaamijka ku qof jira kasta ka ay qaybgeli furan karaa tahay waa ka qaybgeli karaa Ha waa laga qayb geli karaa laakiin waxaaba ku sahlanba gurigaada adoo jooga inaad la socoto. Meediyaha lagu soo gelinayaa facebooka wax walba. Een, waa dhan tahay su-aashaadii iyo jawaabtaadii waa heshay. Haadi xasan, haadi soo dhawow, haadi soo gal meeshaa joogta noo sheeg. Haadi xasan, batoonka dhexda taabo oo u dhexeeyo afuro ku soco. Haadi xasan soo gal. Haadi waa la nahay. السلام عليكم qofka h keliya ku qortay fadlan h magac ma ahan inaa Haadi ajnabi soo tahay inaa dhawow, soomaali tahay ma garan karno qofka h ku soo qortay dhawow haadi. ama magacaaga hore ku qoro السلام عليكم h keliyaad magac ma ahan la soco yaan lagaa saarin Haadi meesha h keliya ka dhaaf haadi السلام xasan. عليكم اه Waalaikum salaam warahmatullah. Haadi xasan xagee joogtaa? اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم غيب سلامي magacayga waa Haadi Xasan waxaan joogaa waddanka Denmark Haye soo dhawow, haadi soo dhawow. marka su-aal yar baan qabaa oo ku saabsan waladkii aad ka dhahayseen waxaad dhahdeen dadka dibadda jooga waxaa laga yaabaa inaad ka maarantaan inaad tagtaan xawilaad iyo marka waxaan fahmi waayey waalidka markaan galo ma visa kaarkaygaan isticmaalaya haddii visa kaarkaygaan isticmaalaya waxaa loo baahan yahay bangi ileen bangiga markuu lacagta ka go'do waa inay bangi international ku dhacdaa uu leeyahay marka taasaa xoogaa bal in loo faahfaahiyaan jeclaan lahaa waa mahadsantahay walaalkay haadi waxaasoo dhan waxaan rabnaa inaan insha allah soo sharaxno oo aan soo bandhigno qaabka wax loo isticmaalayo qofka lacagta saa ugu shubanayo iyo kulli waxaasoo dhan waa soo sharxi doonaa hadduu aan la yidhaah marka xilligeeda marka la gaaro ayaad ogaanaysaa biidni illaahi kariim midda kale oo rabo waalidkaas haddii waxaan ku kaydsado hadhow ma waddanka soomaaliya bas miyaan haddaan rabo inaan dad u diro ama aan wax maya may kobciye keliya u gaartahay kobciye keliya u gaartahay cid kale lacag uguma diri karto lacagta aan ku kaydsado waa kobciya unay ku wareegaysaa kobciye keliya ayaa maaragtay meesha iyo wixii aad kobciye ku saabsan unbaa kula macaamili kartaa waa dhan tahay. Waxaa waye saadiq maxamed cali, saadiq maxamed cali soo dhawow meeshaa joogta noo sheeg iyo su-aalahaada. saadiq ها soo ولي dhawow مغلى saadiq meeshaa joogta
waa lagu maqlaa meeshaa joogta noo sheeg waxaan joogaa magaalada muqdisho gaar ahaan degmada kaaraan ugu soco ku soco su-aasha aan qabo waxay tahay haddii qof kobciye xubin ka ah uu joojiyo bixinta lacagta $nus ah ee kobciye cooperative maxay ka yeelaysaa qofkaas iyo lacagta oo hore u bixin jiray waa mahadsantahay saadiq lacagta inta uu hore u bixi unbaa u shaqaynayso ase unbay ka go-an tahay okay waxaan kaloo su-aal kale waa ku darsan karaa oo maleynayo ku darso يعني هدي كوبعي قف كجير قف كوبعي هدي قف حبن كأها وجيريودو قف كاس جيريود العكتي سكوبعي محي كياليس أسجنه إسلام عقد في كثير إن شاء الله ويعني واحد قرشة إذا كجد جنو إذا كمجرم يا qorshe waa jira waxa waa diinta islaamka ku salaysan tahay marka aan ku leeyahay foomka marka aad buuxinaysid waxaad ku qoraysaa qofka dhaxalkaaga iskale marka dadkaas haddii kobciye ee furto supermarketkeeda ugu horeeya ama xitaa mashaariicda kaleetooda oo ku xiga kobciye ee furto dadka shaqaalaha ka noqon doono waxyaalahaas mashaariicdaas iyo supermarketyadaas iyo waxa ay kobciye maalgelinaysa ka shaqeynayo ma waxay noqonayaan xubno ka tirsan kobciye mise shaqaalaha meesha la doona laga keensan karaa xubnaha number 1 ah haddii laga waayo aqoontaas loo baahan yahay ubaa banaanka la aadaya laakiin inta la heli karo aqoontaas qof iskale oo xubin ah qofkaasaa xaq u leh okay haddii kobciye ee bilowdo maxaan ku yidhaahdaa maalgelinta beeraha iyo cil-uqudidda beeraha kuwooda ka fog webiga kobciye ma maalgelinaysaa xubin ka tirsan kobciye haddii uu leeyahay beertiisa muu maalgelinaysaa ma la siinaya asagaa number 1 ah okay aad iyo aad waa su-aal kale ma qabo marka waa mahadsantihiin adaa mudan aad baa mahadsan tahay waxaan rabaa walaalayaal waktigana waana cirbinaya waa dhow yahay waktiga si kooban inaan uga hadalno dadka cusub oo marka koobaad ay tahay markii ugu horreysay ayaan siinaynaa ahamiyadda xasan maxamed xasan meesha aad joogtid iyo su-aalahaada xasan maxamed haddaana maqlayso iska batonka dhexda taabo horey ugu soco ku soco horey ugu soco basoo qofka hadduu soo geli waayo waqtigaan nahayo ka soco qof kale u yeer haye culeysaa jira maanta networka ee shabakadda aada u culus guud ahaan dadka waxay dareemayaan culays mahad cabdullaahi cismaan mahad haddaana maqlayso mahad ku soco ka faa'iidayso waktigaas mahad dadkii hore wa haye xasan ayaa soo galay xasan cusmaan magacay waa xasan maxamed waxaan joogaa nairobi calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waa xasan waxaan joogaa nairobi xasan maxamed su-aashan qabo waxay tahay qofka marka wax faa'iido u helo qofka kobciye ka tirsan lacagta usoo dhacda ma la bixi karaa hadduu la bixi karaa qofka qurbaha joogan soo ula bixi karaa qaabka uu la bixi karaa wixii faa'iido u helay intaasaan qabo mahadsanidin waa mahadsanta xasan qofka meesha asagaa sheeganaya meesha loogu soo dirayo haddii walletka uu systemka walletka aan samaynana kulley nidaama jiri doono oo aan samayn doono wallet uu kala bixi karo lacagta haddii kalena meesha uu markaa sheegto ee lacagta loogu soo dirayo xasan daawud waktiga waa dhow yahay xasan daawud batoonka taabo ku soco xasan daawud maxamed xasan
uu ka maqan yahay taleefonkaan u malayn nama maqlo. haya xasan daawud maxamed meeshaad joogto. halo xasan waa ku maqlaa meeshaad joogtid xagee ka soo hadlaysaa. xasan maxaa kugu dhacay ku soco. doctor ka soco qof kale leed xasan khadka ka xun. qof kale leed mawlid cabdulaahi haddaad soo geli karto mawlid. xasan waa lagu maqlaa ku soco. salaama dhammaantiina kobciye cooperative waxaan qabaa su-aashaan qabo waxa waaye goormay iskaashatada macnaha ay helaysaa faa'iidada ugu horeyso qofka goormuu helayaa faa'iidada ugu horeyso ma sanad ba ma 2 sana ma 3 sana xasan waa abaarsan tahay walaalkay muxuu ahaa marka la maalgelin la sameeyo dabcan waa garan kartaa ayaamaha ugu horeeya dhismo iyo isdiyaar garayn iyo wax soo gedis iyo waxbaa lagu jiraya marka waxaa laga yaabaa sanad inay qaadato inay 2 sano qaadato ila mashruuc aad u ballaaran waayo oo la rabo in geyiga soomaaliya oo dhan u ka hirgalo marka sanadka koowaad iyo kan labaad waxa waaye waxaa lagu mashquulsanaanaya maalgelin xitaa waxaa laga yaabaa sanadka saddexaad inay gasho oo markaasi aad wixii ka dambeeya mar alla markii wax iibin la bilaabo markaas ayay faa'iido bilaabaysaa laakiin ka hor yacni wax dhisib iyo waxaasaa lagu jiraa mashruucan mashruuc ballaaran waa mashruuc yar maahan marka kulley waxaad sabri kartaa 2 sano ilaa 3 sano inaad sabartidaa dhici karto oo waxba ku soo dhici oo intaas lacagna aad meesha ku gurto $1 uu socdo aada umahadsantiin boqolkiiba insha allah allah yسلمك. weheliye maxamuud daqiiqada dhowr ah noo haray ku soco weheliye meeshaad joogtid iyo su-aalahaada. weheliye haye mawlid buu ku soco mawlid أنا معناها السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. وادي سلام دمان كبعية بروفيسور عبد القادر عمروك سلامي يو دكتور محمد الرشيد وبرامج كوضان دمانتين واني سلامي انجينير عبد الله احمد وسلام اسقا دمان رير كبعية إذن وادي ود سلامي سؤال قبو waxay tahay oo idin weydiina kobciye goorme oo la bilaaba oo barnaamijkan barnaamij fiican waa maasha allah goorme taabageli oo la bilaaba oo dadkalna la qoraa maasha allah oo la sii horumarina waa ka baxay. weli waa mahadsantaha walaalkay waa cabdiqaadir cumar barsoor maaha mana u dhowa muxuu ahaa kobci waxay bilaabmay insha allah marka daahfurka la sameeyo ayaa diiwaangelinta lasoo bilaabay taasna waxaan rajaynaynaa insha allah bisha soo socoto inuu ilaahay noo suurtageliyo ayaa maaragtay aan ilaahay ka rajaynaya waxaadna ogaataan dadka inta badan yacni waa arkaan dad badan oo soo qorqora oo dadku waa caajistahayaan waxa waa la daahiyey waxaad ogaataan waxaan ilaahay xaggiisa ka soo dhammaan inayna suurtoobaynin inay soco maalintu ilaahay ogolaado inay kobciya bilaabato maalintaasay bilaabaysaa leanna qof kasta yacni gacanta ilaahay ku jira ilaahay ayaa wuxuu qorsheeyo unbaa soconaya marka taa maskaxda lagu hayo wax annaga xaggeenna ka imaaday ma ahan wax qof kale xaggiisa ka yimaaday ma ahan waa wax xag ilaahay ka jira qorshaha ilaahay gacanta ku haya isaga adiga naftigaaga ayaa lagu maamulaa berrito markaad gurigaaga ka soo baxdo saantaada meesha aad dhigaysid war uma haysid dhulkan ballaaran oo aad ku socotid
meesha aad saanta dhigaysid war uma haysid laakiin ilaahay xaggiisa waa ka qorshaysan tahay marka waxaan wuxuu ilaahay gacantiisa ku jira waa ilaahay maalintuu ogolaado inay kobciyo bilaabato maalintaasay bilaabaysaa marka taa halada soco degdegana ha layska daayo yacni kobciye waa wax ilaahay gacantiisa ku jira oo ilaahay aan uga dambayno oo ilaahay aan baryayno habeen maalin inaan ducaysano loo baahan yahay oo ilaahay ka barin inuu kobciyo noo bilaabo oo noo hirgeliyo yacni iyadoo nabad iyo maaragtay iyo barwaaqo iyo inaan ku gaarno maaragtay ilaahay uu ka rajaynayno insha allah taa la soco doctor waa soo dhamaaday waa mahadsantahay jazaaka allah khayr waxaan siinayaa cabdiraxmaan cali muumin soo dhowow meeshaad joogta noo sheeg walaal iyo su'aalahada cabdiraxmaan cali muumin iska qaad ku dhufa nambarka dhexe cabdiraxmaan soo dhowow cabdiraxmaan cali muumin umu nawaas hadduu soo gelayno cabdiraxmaan waa soo geli waayey umu nawaasa hadda online soo geli rabta batanka ballaaran ee dhexe hoose taabo ku soco umu nawaas asalaamu calaykum waa idin calaykum salaamo salaam walaalayaalo inanka yaroo waxaan rabay xageed wiilka yaroo abdinawaas xageed sharif joogtaa ugu umu nawaas qorneed waa inankayga oo meesha ka saarteen hadda magaca bedela magaciisa nawaas shariif la yidhahdaa haa waa haya magaciisoo xaqiiqa ah walaal bes waa lagu soo celinaa insha allah walaashe waa lagu soo celinaa haye waaye waa idin salaamaa walaalayaal waayo walaashe waa lagu soo celinaa insha allah haya xageed joogtaa walaal xageed ka may soo waa ka hadlaysaa baxday walaal intaas bay su-aasheeda intaasay ahayd intaasu bay noo sheegi lahayd haye aan soo gabagabayno marka haye abu cabdallah okay maxaa su-aalo waxaa ku dhamaynay maxamed xasan xaaji okay waa ruuxii u dambeeyey maxamed xasan xaaji ninkaasaa u dambeeyo maxamed xasan xaaji meeshaad joogtid noo sheeg calaykum salaam waraxmatullah soo dhowow maxaa khadkaa ka xun maxamed xasan xaaji khadkaa kaa xun caawa ma garanayo dhibaatada marka waxaan rabay laba su-aal aan qaba inaan idin weydiiyo su-aasha koowaad waxaa waaye lacag xageed qabashada joogtaa walaal iyo xasan maxamed xageed joogtaa ka soo hadlaysa walaal waxaan joogaa wadanka Norway gaar soo ahaan dhowow Oslo ku soco marka waxaan rabaa laba su-aal inaan idin weydiiyo tan koowaad waxaa waaye lacag qabashada ma bilowdeen oo hadda ma sii qabanaysaan tan kale qofkii lacagta dadkii hadda lacagta sii dhiibta oo dadka hore ah iyo qofkii gadaal ka imaada ma isku mida mase qofkii ugu horreeya mar walba waxaa la siinayaa priority la siinayaa labadaas su-aalaan raba inaan idin weydiiyo aad baad mahadsantiin su-aasha koowaad maxay ahayd walaalkay tan koowaad waxaa waaye lacag qabashada ma sii bilowdeen goormaa lacag lacagta la qabashada furayaa goormaa la bilaabaya lacagtu yiri okay lacag qabasho ma jirto hadda lacag qabasho wax la yidhaahdo ma jiraan kobciya lacag qabasho waa weli weli maysan bilaabin markii diiwaangelinta la bilaabo oo qofku uu soo diiwaangeliyo oo annaga aan soo sheegi doono haddii waa la yidhaha waa marka xafladda la qabto kadib waa imaanaysaa haddii waa la yidhaha tan kale oo aad leedahay maaragtay qofka ugu soo horreeyey iyo qofka ugu dambeeyey horta dadka waa wada siman yihiin laakiin qofka soo horreeyey in badan uu lacag bixinayay oo nus dollarkii bixinayay oo dayliga ahaa qofkan gadaal uu ka soo galay xagga faa'iidadu ay kala badanayaan laakiin xuquuq kaloo isdheer yihiin ma laha laakiin faa'iidadu way kala badan yihiin macnaha qofkan horu lacag dhowr bilood oo lacagta soo bixiyay ama dhowr sano uu lacagta bixinayay qofkan haddeer uu soo galay uu kow bilaabay marka sanadka xisaab xer marka la sameeyo isku lacag ma noqon karaan
sababtoo kan qofkaanan ka lacag badnaa marka taasay maarata ku kala duwan yihiin su-aashaa saasay ahayd sooma aad iyo aad waad mahadsan tahay intaas rabaa inaan ku weydiiyo okay marka waana ku faraxsanahay barnaamijka aad weydiin halkaasaan marka kusoo waxaan idin gabagabo leeyahay guuleysta cabdullaahi mar walba cabdullaahi bis okay marka intaasaan kusoo cabdullaahi caafi hal mar sii injineere in badanuu meesha ku jiray cabdullaahi caafi haye kusoo dhawo cabdulaahi saan ugu dambeyn kusoo dhawo cabdullaahi caafi batanka ballaaran ee dhexe taalo cabdullaahi adaa ugu dambeeyo fadlan aad mahadsan tahay waalid baan kariya waa lagu maqlahaa soo dhawo cabdallah meeshaa waxaan joogta noo joogaa sheeg walaal kan baaran joogaa walaal aad la socday su-aalo badan ma qabin laakiin waxaan rabay keliya maadaama had iyo jeer la qabto kulamada caynkan oo kale ah su-aalo badan laisku weydiiyo su-aalihii hore marka in aan fiidiyowada hore daawado waqti badan baa iga lumayo marka su-aalihii oo diyaarsan iyo jawaabahooda ma heli karaa marka aad waa mahadsantahay walaal taas maanan diyaarin abu cabdalla khayr allah sii ayaa xoogaa diyaarshay dhowr su-aalood oo saas oo kaleeto marka qofkii naga caawin kara annaga timekii aad ugu yar xaqiiqatan waan damacnay inaan samayno wax la yidhaahdo question and answers oo kaleeto oo frequency ah laakiin waktigii ayaa noo saabixi waayey sababtoo annagii oo maaragtay irsaaqad erisa ku jirno iyo hawshii kobciyo oo ballaaran labadii ayaan maaragtay awoodi kari weyne marka qofka naga caawin karo inuu fiidiyoyaashaas daawado oo su-aalahaas su-aashii iyo jawaabteedii noo soo qora oo qoraal ah aad iyo aad ayaan maaragtay qofkaasi u mahadin lahayn insha allah marka inaan meeshaan yacni dad gaara lagu sii daayo ma ahan kobciyo meel la wada leeyahay loo wada siman yahay marka in culayska dad kale gaara la saaro waa laga fiican yahay waxaa la rabaa qof walba inuu isxilqaamo wuxuu qaban karo uu qabto haddii qof si volunteer uu noogu samayn karo intuu fiidiyoyaashaas oo dhan uu soo daawado oo wakti geliya qofkii wakti haysta oo qoraal u bedela aad iyo aadaan maaragtay u jeclaysan lahayn arrintaas ilaahayna maaragtay waxaa uu bari lahay qofkaas inuu khayr siiyo oo ajirna ka siiyo waayo su-aalahaas weligood way soconayaan qofkaa marka sadaqa jaariya u noqonaysaa xaqiiqatan qofkii naga caawin karo marka abu cabdallahi waxaan soo gaarnay dhammaadkii injineer cabdulaahi axmed meeqa su-aalaan qaadanay caawa maasha allah waa dhammaadeen 15kiiba maasha allah walaal noo soo gabagabe jazaaka allahu khayr intaas ayay noo ahaanaysaa kulankan kiisa kaleeto ilaahay nabad iyo barwaaqo iyo raxmadiisa hanagu soo dejiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheekh cabdallah noo soo xir بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا ليال إسكاشة هيركم بعدما أنتم بمركلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا ورسة الله رحمن كايا محض أردن إسكالي هكذا إنوفو زيي مرلبات كما هذا اللبات وحا إسكالي أخيارتا إلهي خير السيو مرصدحات كان حبنه أردنبا إلهي لمانتم هيد بركيو ولا ليال إلهي خير السيو وربحنتها وناكسن إيا السؤالة wanaagsan aynu qaadanay waxaasoo dhan waa xawey walaalayaal waa asbaabtii mashruucan inuu inoo noqdo waxaan sidaynu jecel lahay gacanta ilaahay bay ku jirtaa subxaana wa tacaala ilaahayna ballanqaadiyo ina siiye walaalayaalow qolyihii weydiinayay akhyaarta hadday noqoto amniga waxyaalaha lamida inagu horta ballanqaad allaynu haysanaa haddaynu ballanqaadka alla waxa uu inaga doonaya ka soo baxno waxaasoo dhan alla waa inoo fududaynaya waxaasoo dhan alla inoo fududaynaya allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waman yattaqi illaah cidda alla ka baqda yajcal lahu min amrihi yusraa allah wuxuu inaga rabaa walaalayaalow alla ka cabsiga ina badino alla marka wuxuu ballan qaaday cidda alla ka cabsiga badisa arrimahoodoo dhan u iyo diilkeeda uu ka dhigayo sidoo kale allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala waman yatawakkal cala allah cidda alla tala saarata فهو حسبه الله كفلا بل قفل ولا لا إله خرج إن ير فكر عد الله يدي أنا ذي كفلا يلو ذين كريا مركا إنه ولا لا يالو إله خرج وحينا كبغن ودي كينن كفي قف كستو إنك مذا أخيار تقول معه والله ما أنتي في ذو جهري أن داودي أدور قفر حي
waxaana waa is ammaani maayo waa arrintan doonayay qof kastoo innaga naga mid ah waddankeenan mas-uuliyad baa naga saaran marka dhammaanteen inaan gacmaha isu qabsanno allana tala saaranno alla ka cabsigana badino istikfaarta badino ducada badino waxba inaga xumaan maayaan waxaan hubaa biidni illaah in allah number one inaga dhigayo marka walaalayaal dembigana ka baqano ilaahay kharada siiyo alla ka baqano dembigana ka dhex baxa istikfaarta laasimno faqultu istakfiruu innahu kaana qafaara allah markii uu nuxleeyay qoomkiisa istikfaarta laasima ilaah waadida dhaafaya wuxuu raaciyey يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال إلى آية وقت يقول عيه وحراعي الله عركو دي بركانية حوله يدي بدنية أبدكو يدي بدنية بيروه يدي بدنية مركا إلهي خير السي ولا ريال بالحق أنا نحوق سارنو جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير الله يحفظك السلام عليكم ورحمة walaasheen maxay too hodan sheekh yunis ducadii